aan ku horumarnay waxaa maalmahan baraha bulshada dhex socday cod la sheegay inuu yahay mid ka mid ah shaqaalaha baarlamanka darawalna uu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. haddaba guddoomiyihii hore oo warqeyb ka mid a waraysigiisa aanu sii daynay maalintii isniinta ayaa qeybtan waraysi aan la yeeshay waxa uu kaga hadlayaa waxa uu kala socdo mid ka mid ah darawaladiisii oo la sheegay inuu u goosta dhinaca al-shabaab kaasoo lagu magacaabayay xuseen maxamed xasan. marka hore ma aaminsani xuseen inuu ku qancay nidaamka khawaarijta oo uu ku tilmaamay inuu ka wanaagsan yahay kan dowladda oo 4 sano uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda kadib inuu yiraahdo nidaamkaasaan ku qancay. runtii waxaan dhegaystay wixii asaga laga duubaan dhegaystay waxaa ku jira codkiisa khalkhal aad u weyn. ninkaas darawal uu ahaa wuxuu ka mid ahaa markii hore darawaliin loo tababarayay gawaari ay iska lahayd wasaaradda gaashaandhigga. halkaas ayuu iga soo raacay markii dambena markaan guddoomiyaha baarlamanka noqday guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalka aan noqdayna wuxuu ahaa darawal ila shaqeeya. marka ma fahmi karo waxay la tahay hay'adaha amniga iyo hay'adaha dowladda oo qaabilsan inay baaritaan ku sameeyaan ayaan arrinkaas ku wargelinay asaga inaan ka warsugno ma ogiye ayaga aan ka warsugno oo baaritaanka ay dhamaystiraan ma ogiye waxay ila tahay in hadda aan laga hordhici karinba because ninkaas oo xuseen ahaa oo 4 sano ila shaqeynay sabab lama hayo sabab oo rasmi ah oo ninkii halkaas uu aaday. marka wasiirka gaashaandhigga markaa ahayd ayuu wasaaradda ka tirsanaa ma ciidanka xoogga dalku ahaa? may ciidan xoogga dal maahayn dal kama tirsaneen qof shacab uu ahaa baabuur meesha tiilay oo 6 gaari ah oo ay deeq noo siiyeen Amerikaanka ayaa asaga iyo darawaliin kale loo tababarayay ayadoo tababarku u socdaan noqday aniga wasiirka markaa ma ahayn dad markaasi la keenay ahayn oo loo tababarayay darawalnimo. marka waa taqaanaa mar haddii baabuur noocaasa loo tababarayana ciidannimada wax inay ka fahmaan wax yar yaroo ku saabsan say isu difaaci lahaayeenna ama qofka mas-uulku ay wadaan ay u difaaci lahayn waxaas u yaqiinay laakiin qof ciidanka ka tirsan ma ahayn. markii adiga hadda guddoomiyennimadii aad ka degtay xaguu ku wareegay yuu la shaqeynaya hadda? still anuu ila joogay moogtay qof ninkan wuxuu ahaa shaqaalo ahaa oo shaqaalaha dee darajooyin ay kala leeyihiin. shaqaalaha baarlamanka gunada uu siiyo ayuu ka mid ahaa. aniga markaan kasoo tagay dee guddoomiyennimadii oo halkaan aan usoo wareegay darawaliintii soo raacay ayuu ka mid ahaa. anigu ila joogay xamar oo ila joogay xamar. marka warar waxaa jira sheegaya in baaritaan uu socday ku aadan weerarkii loo geystay hoteelka Villa Rice tuhunna uu soo galay dad isaga ay isku dhawaayeenna la xirxiray oo uu ka walwalay in isagana lagu yimaado. ma jirtaa in dad isaga xiriir dhow la lahaa loo xiray weerarkii hotel Rice? wallahi weli warkaas aniga ma hay dad asaga u dhow la xirayna ma ogi. hay'adaha amnigana waxay hadda noo soo sheegeen ma jiraan oo asaga ku saabsan. asagaa qiftayba in xiriir uusan la lahayn qolada al-shabaab oo mar hore uu ku fekerayay inuu u tago laakiin hadda fursad uu helay meeshaas markuu tegayena dad kale iyo wax uu la xiriiray ay u fududeeyeen. marka ma u malaynayo wuu sheegi lahaa malaha wuxuu dhihi lahaa anigu dee arrimahaas aan sameeyey waa kasoo tegay laakiin arrintaas aan u dayno qolada amniga iyo qolada iskale baaritaankaasi kulliba ayagaa soo xaqiijin doono wuxuu yahay. adiga goormaa kuugu dambaysa marka? aniga 4 bilood ka hor ay ku dambaysa iyo 5 bilood baan dha aniga waddanka waa ka maqanay Falastiin. marka laakiin guriga goormaa ugu dambaysa gurigaaga oo uu ka tegay? 2 maalin ka hor marka uu dee horta guriga amnigiisa wuu sugan yahay oo ciidanaa jooga. qof walba wuxuu rabo iskama samayn karo. asaab idaacadda ka sheegay waraysigiisay ku jirtay. hal maalin miya 2 maalin markuu maqnaadayna waxaa lagu waxaa loo sheegay qolada amniga waxaa la yidhi ninkaasaa maqan lamana hayo meel uu aaday.
gurigiisaa la weydiiyey waxaa la yidhi ninkii xagguu aaday xaaskiisii waxay sheegeen in habeenkii intuu soo kacay uu yidhi aniga waa xanuunsanahay dhakhtaraan rabaa degdeg inaan u arko dhakhtar uu aaday marka xaaladiisi marka la waayey waxaa lala socodsiiyey laanta ammaanka waxaa jira warar sheegaya in lacag fara badan accountkiisa ay ku jirto ma lagugu wargeliyay arrintaas maya ma umalaynaya because ninkan lacag yaroo qaadanayay ma umalaynayo laakiin aan u dayno sida aniga aan sheegay qolada baaritaanka wada kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo qadka telefoonka iigu waramayay dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in hay-adaha amniga aanu isku daynay in arrimahani aan wax ka weydiino balse ay noo suurageli weyso marka ugu horeysa ee aanu helno ayaan idiin soo gudbin doonaa